بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلا جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى ديكوان ما يلو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت باهن الله ديقو انت بوكت الله بوكسيو انتي دمت الله ونحرستو والدينتان الله ونحرستان نغن الله نوغدبا نحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana wa tacaala inoo badbaadiyo. Afar qodob baan ka hadlayaa. Qodobka koowaad, haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed, New York rag baa ku matalaya haweenkii Soomaaliyeed, kelmadaan ka ornaya. Qodobka labaad, madaxweyne xasan qabiilka ka taga iyo dhaqankiisa, iyadana kelmadaan ka ornaya. Qodobka saddexaad, xasan oo magac cusub xamar looga bixiyey, xasan sheekh, iyo qadiyadii kalluunka, xaruntii kalluunka, kelmadaan ka oranaya. Qodobka ugu dambeeya, cabdi iftiin oo aan kelmada ka iri baan mid kale ka dabageynaya. kow, xasan sheekh maxamuud wuxuu magacaabay Bashiir Goobe, wuxuu u magacaabay wasiirka haweenka. waa shaqada kaliya ay leeyihiin haweenku oo la rabay in loo daayo. waa ku gufee wiil yar oo aad arkayseen meel taagan oo leh vitamin 12 haddii la cuno waa la qalalaa. adeer maalin walbay dadku cunaan oo the counter baaba laga iibsadaa, xataa takhtar uma baahna, mana takhtarna nooma qoro. waana vitamin jirka caawiya oo caafimaad laga helo. haweenka uur kalaa loo qoraa inay cunaan si iyada iyo ilmahaba ay uga helaan waxyaabo nutritionist oo loo baahan yahay. aqoon buusan u lahayn, shaqadiisii baysan ahayn. ku gufee hebel waa ina hebel habaryar baa dhashay, geli halkaa geli. ma ujeeda maanta maxaa ka dhacday New York? waxaa la soo qoray Somalia sends male dominated delegates. waxay u soo dirtay shirkii haweenka adduunka ayay waxay u soo dirtay rag bay u soo dirtay, 3 nin oo Soomaali. waxaan la yaabay goodaha nin wax bartay baan u qabay inuu naaga isku dhex sawiro. waa iska nasiib daro. Bashiir Goobe darajada ugu sarreysa ciidanku leeyahay, haddana wuxuu leeyahay haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed. yacni ceeb stagekii caalamiga ahaa meel walba ku ceebaysanahay, fadeexad. qodobka labaad baan u gudbaya. xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi qabiil uf intuusan ka qabsaday masaajid buu dhex taagan yahay. isla markii uu safar aaday shaqo, wuxuu ka haystay koox reerkiisa ah. dowladoo dhan ma reerkaagaa leh, kaaba qabiil baa tahay. su-aal kale, nin aqoon haddii wax lagu xulayo wax yaqaan ma reerkiina keliyaa jira. su-aal kale, haddaad adigu sidaas qabiilka u aaminsantaho tolkaa cidaan ahayn aadan dowladnimada uba kirsanayn una ogolayn, maxaad ula taagan tahay beenta masaajidka oad u leedahay qabiilka laga tago? xasan waa xasan. hadduu durdur iyo dabaal galo doofaar weligii ma daahiro. isaga xagga ii dhig. kuwiinaan madaxweynaha garab ordaya oo la socda dad aqoon leh oo wax bartay baa idinka buuxo, rag iyo dumar bale. hadduu isagu waashay oo khaldamay oo sidaas balander ugu dhex jiro iyo ceeb, idinka maxaa idinka khaldan? idinama waalantiin. war madaxweyne, arrintan ceeb weeye, annaga keliya dalka ma matelnee, dadkii kale ee dowladnimada nala lahaa nagu soo dar. nin dhihi karaa idinkuma jira miya? alaysa minkum rajulun rashiid? wax macna leh oo wax u sheegi karaa ninka idinkuma jira miya? madaxweynaha waxaan leeyahay, hadalkayga iyo ficilkayga kala sooca. markaa leedahay qur-aanka waxaa layna ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. ilaahay rasuul buu idiin soo diray, isagaa example idiin ah. wixii uu sameeya. hadduu marka rasuulku waasho oo khuraafaad ku dhaqmo, ayaddana noo akriya ma laga qaadanaya? waa maya. muxuu samayn jiray? kaana qur'aanu yamshi calaa wajhi lardi. dhulka qur'aan lugaynayo nool buu ahaa. soo ma arkis? qur'aan nool oo lugaynayo ahaa. markii laga sheego muxuu samayn jiray? aayaddii soo degtaba dhaqankeedu ku dhaqmi jiray, xadiiskii soo degaba isagaa ku dhaqmi jiray. kadib bay dadkuna kaga dayan jireen. ilaahay nabigiisii Shucayb wuxuu yidhi calayhi salaam, wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu. ma raba inaa idiin dabamaro waxaan idinka reebayo. qur'aanka saasay ugu sugan tahay. maamulka iyo managementiga leading by example. haddaad tuug tahay dadka ma dhihi karti wax haadinina.
haddaad qabyaaladiista tahay dadka ma dhihi karti qabyaaladda iska daaya labadaas masalo midna kaa yeelmayaan haddaad tuug tahay waa kaa tuugsanaanayaan haddaad qabyaaladiista tahay iyaga waa kaa darnaanayaan baarlamaanku la soo fariistay wiil markaa tiri anigu carruurtaydaan geynaya isaguna wuxuu yidhi annaga ehelkaygaan wada geynaya maxaan kala doonaya cid kale adaana ku dhiirigeliyey yaa u sheegaysaa marka qabiil uf ma ujeedaa kelmaddaasna intaasaan ka warran qodobka 4.5na waa dishay qofka kaa dambeeyana haddee waxa weeye adaa u furay waddo uu reerahooda keliya kula shaqeeyaan adaa u furay waddo berri kuwiinaa garab ordaya madaxweynaha oo qaylinaya yaan laydin arag waddadaa furteen kamaa tadiinu tudaan saa dadka ula dhaqanteen baa laydinla dhaqmi doonaa aan ogahay beesha qoyska faamiliga madaxweynuhu inay ka xun yihiin waxaan ceebna ay tahay agtooda laakiin ha la hadleen oo ha u sheegeen kuwaan garab ordayo yaacaya ha u sheegeen oo ha yidhaahdeen war baraarujiye madaxweyne oo isku soo dara 2 iyo 3 iyo wax isku dara qodobka saddexaad oo igu dambeeya qodobka saddexaad meeshii kalluunka waa xaraash xasan xamar waxaa looga bixiyey xasan xaabsade xamar baa looga bixiyey hadduu dhulkii dowladoo dhan xaraasho yaa turaa dowladda soo socota xaggee bay ku shaqayn doontaa dowladnimadii baa sii weynaanaysa ummaddii baa sii badanaysa magaaladii baa sii camirmaysa oo sii ballaaranaysa dowladdii xataa MCH-yadii buu gadayaa xataa MCH-yadii jeebkuuna ku shubanaya shirkado waaweyn oo la garanayaa ka iibsanaya ceeb weeye waa fadeexad dhulka dad baa laga barakicinaya war madaxweynihii kaa horreeyey isagoo maalinna dad barakicinaya maaragta waagii horena barakicin baad caan ku ahayd iyo dadka maxasta intaad beegsatid inaad meeshii deganyihin ka saartid kadibna aad ganacsato ka iibsatid haddana intii unbaad dhammaystiraysaa oo qabyo ninkeedaa dhammaystiraad la soo noqotay dowladnimana ma taqaanin macnaheedana ma fahamsanin waxa u qabtaa in la boobo ummadda hantideeda inay dowladnimadu tahay dowladnimadu saa maaha barashay rabtaa cilmi weeye la barto ku dhaqan bay rabtaa rabitaan bay rabtaa inaad rabtid inaad dowladnimo ku dhaqantid waxaani dowladnimo maaha waa fadeexad dadkaas shacabka ood maalin walba barakicinaysid haddee way ku baranayaan shalayna qabyaalad baad ku awrkacsanaysay oo iyaga ku laxawsanaysay beer laxawsi ma garanaysa tollaay reere baad haddaan nahay ina kiciyay baad lahay in badanoo makas ah baa ku raacday aan wax garata ahayn maantay hayaan wixii ay raadinayeen kuwaasi dadka shacabka oo masaakiintaana waxaan leeyahay sorry adeer waan ka xumahay wallaahi maalin walba marka laydin barakiciya beerka ay xanuunaya laakiin waxba idinma qaban karo ninkii madaxda idiin ahaana nin xun buu idinku noqday marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu sida inoo dhaamo inagoo dhan qodobka igu dambeeya waxaa laygu yidhi maxaad uga hadashay cabdi iftin laba masala horta igu muhiimsanaa inaan arrintiisa sidaan uga hadlo laakiin ka hor aan idin update gareeyo anigu kufriyaadka uu ku dhacay iyo khaladaadka iyo dhaqan xumada kulligood waa arkay laakiin waxaan idinkaga duwanahay anigu diintaan garanaya takfiir diinta islaamku ma ogola process bay leedahay waa idiin sheegay shuruudo baa laga fiirinaya qofka saama ku dhacay arrintaasoo gaalnimo ma ku dhacay ha markii la yidhaha 10 weeye ama kulligood ama hal ama 2 ka mid a lagu arko waxaa lala aadayaa processka qaybtiisa labaad stageka labaad oo ah mawaanic ma jirtaa war qofkan wax ka celin kara gaalnimadii in lagu xukumo ma jirtaa markaad qof xukumaysid caatifadda waa inaad ka maran tahay cadaalad waa inaad ku dhaqantaa maxaa yeelay ilaahay baad ku matalaysaa go-aanka aad bixinaysid waxaad leedahay alle qofkan wuxuu u yaqaan sidaa kaafir markaa leedahay qofka ama munaafiq leedahay ama mu'min leedahay ama muslim leedahay rabbi baad ku matalaysaa marka caadifad shughul kuma leh jacayl iyo nacayb aa qofka u qabtid kuma dhisna ilaahay baad taxki canillah marka waa inaad ka fiirsataa kasoo gudub marka hadduu xataa gaaloobay waan idiin sheegay tawxiid baa ka dambeeyey tawxiidkuna ashaqaqta qalba qaar baa ku leeyahay qarsanaya ma qalbigiisa u dhacday yaa kuu sheegay qalbigiisa gashay ma adaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iska dhigaya yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukhfi suduur cidda qalbiga waxa ku jira taqaan waa alle oo keliya aniga marka maxaa igu kalifay 2 arrimood kow waxaan ogahay dhibka ugu weyn oo Soomaali ku dhacay takfiir baa u geystay shabaabku waxyaabaha ay wax ku rukurud gareeyaanna waa inay dadka gaalaysiiyaan maxaa ku xiga inay banaystaan dhiiggeena inay banaystaan maalkeena sharafteena dhalinyarada marka sidoodaba asal ahaan u abuuran geed nin yari intuu geed ka boodo tala ka booda inay wax takfiiriyaan inay wax dilaan iyo way isaga sahlanta
anigu qadiyadda ka dagaalamaya culimadoo dhan ugu baaqaya in xooggaaba la saaro awoodoo dhan laysugu geeyo takfiirka in lala diriro waa in la yidhahda qofna ma gaalaysiin kartaan maxaa ka dhamaysa inay iska ilaaliyaan intiini hadda ninkaa gaalaysiisay isagoo tawxiidka ku dhawaaqay yirina weligayba ma gaaloobin dembigii uu ku dhacay waa dembi isaga ka dhacay xukun u baahan afartii shay oo cudurdaarkaa ma jahli baa u geeyey ma kama buu uga dhacay ma lagu khasbay ma ta'wiil iyo aragti ahaan buuba aaminsanaa isagoo daliil daliishanaya qur'aan iyo xadiisa inay bannaan tahay arrinta oo sax tahay waxaasoo dhan baa jiro aydinaan fahamsanayn qadiyaddaas marka qodobka koowaad bay yahay takfiir inaan la diriro darteed ninkaa waa ku difaacayay iyo cid kastoo kale oo la takfiirinayo labo waxa uu aad uga hadlay etoobiyaanka oo weerar ku ah dalkeenna cadowga koowaadna ah dhibaatana haysatana in layska dhacshana ay daruuri tahay dhalinyaradana xiriir fiican buu la leeyahay dad aad u badan baa ku xiran waana in dhalinyarada they can relate with him marka inta badan dadka weeraraya oo isaga ayrsanayana waxaa ka buuxaa gobollo soomaaliyeed oo etoobiyaanka aad looga jecel yahay dad ka soo jeeda marka siyaasad ahaan iyo inay etoobiyaanka ka dhacsadaan markastoo aan etoobiyaanka anigu wax ka sheego twitterka kuwa igu caaya aniga ujeeddadooda waad garanaysaan etoobiya difaacayaan maba qarsanayaan bannaankayba la taagay waagi hore waa laga xishoon jiray waxa noocaas oo kale ay dabadhilifnimada bannaankayba la taagay siyaasiga keliya maaha waxa ba'ayoo hoogay waa shacabka oo dhan ma ujeeda dad badan oo ka mid ah dadkii ayaa hallaabay marka arrintaas labadaa qodob anoo ka dagaalamaya ayaan arrintaa difaacay waana ii daruuri takfiirka inaan la dagaalano waa muhiimadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad diintu waa barasho cilmi waa barasho aqoontu waa barasho ma hariyo inaad iska hadashid adoo aan aqoonteedii lahayn wax walba aad ka hadashid looma baahna waxaanaan aqoon kama hadalno waxaanu naqaan baan ka hadalnaa dadkiina qawqaa'iyiinta oo iska yaacayana hawl idiintaa la weye waxbarta iska daaya commentiga iyo cayda iyo bukdi iyo bakde buug qaato waxbarta akhriya wax akhriya waxbarta dhisa maskaxdiina wacyigiina kor u qaada dadkoo dhan baad wax taraysaan idinkuna waxbaad istaraysaan billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.